السلام عليكم أمين دور أو مارتي يعني معني رالي نغانيسين أسوق عبنا أرت الله إن شرفه وأنا شرفتين وأنا صوبحذين وأنا على مسارتين إلى إذن شرفه مركز سؤاشا هذا نك هذا هلا اسكت واقع أسري دتكو عكوا يستان محمد فاي مع سكدال وين ما تسمع تاس مايش أنت كمان كجوابه تاس وين قبل ربنا ماشي ذا كجرته مدوه الرئيسة وهارون أنا متاجنين وحان لهاي قفوها بون ماشي أنا على دونا وجر حال كذا ما فعنا وحيصو بحذي بدي لو ما صعد إني أمدان لبدبادي إني الصومالي هدان عني دولة قبلات كنا لسي إني دولة الليل ودولة النقطي قفكو الشخصي أو قبنا مجلس أسياي أو قفل بس دريشت كده ده أو وحي رأس كاونتي كبوا بس ده دولة نمدي سيل لجربي أو شرق كينيا ياسي نوض مركز ريدي يسان سيل لجربي لما يل وهاي كان مركز تاس إيو أنتي سيلاي حرمي أو بيتو مال كان أما العقد وددوين اسكولية يلبوبة مركز لبضع الاسكودري وهاي كانت سومالي تانا وابدو مينا هذا ذلك وكال لا ينفاي رير هبل أيلين مدنا بابين أيسا واتاس محايلي قبيلك في عني انت نام بواسكو قراب الشيغنا او قبيلك ابا ايدا ولال الاسكويه مش الاسكالدش لو شيغا لكن قبيليسي نبينا صلى الله عليه وسلم وعزي وقرن قرن يا انت اللي قاده دولد اللي قلي دولدنا قرن waa dhaaftay marka inta umadu adeegi lahayd qurun ay noqotay sida nabigeena u tilmaamay maxaa yeelay shaqaaliha lagu qoray qabiil lacag looma dhiibin shaqadii lama barin si la rabay looma kormeerin waxaa dhacday marka inay dadkii dawlad la waayay oo dawladda qafka gabana la dhacay noqotay maxaa umali in la dhumay degtiintaana reer wajeer kulli u bixina waa dhumaynaa hadda tii hor lagu socdo sidii aqligan hebel kanaan aqaana kanamaad wax ka hela kana cidayna haddaan ku soconno oo ilmahaanaytu hadda soo koraya aabaheena dhamaana haddaba la dhumaa aan waxaan aaminsanahay dawlad laantaas daraaddeed dad badan hadda god ugu jiro abaartii la soo dhaafay dadaa oon u dhintay oo lacagtooda la cunay dadaa istaal daawo laan u dhintay oo lacagtooda la cunay marka haddaanba dhumahayna yaana dhumahay dadka liita howlo dhaqatada reer baadiyihii ayaga lamaba aqoonsan tuulooyinkii bannaanka ahay oo wajeer ka baxsanay inkastoo wajeer magaalada ay dhib weyn qabtay maamayaasha gabdhaheedna weliba kuwa ilmaha gooma haysta ama maskiimaha inta iidaado dawladda inay u gurmato la rabay uma gurmin abaartaan tii kaloo weynaad waa midaan aad sheegtiin oo biyaa dhaaminay abaartaan tii ama waa ka weynta laakiin gurmad ma la arkay gurmadkii laga rabay aawe reer wajeer aan iswaraysanna dawladda waqtiga iidaad waxaa u malaynaa sidii 100 milyan waa ka yareen waana ku gurmanayna midaan countiga maxaa ku dhacay waay midda u horeysa dawladdii maba jirin marka horeba qofka sidaas oo asaga lacagta iska leh iyo dadka ag dhow kaliya iska maamulnay see laga rabaa see in loo maamulo rabaa dawladda tusbax iyo tawba hadday soo gasho maxay ugu duunaani waa idin tilmaama marka dawladda aan sheegay dawlad waxaa la dhahay shaqaalaha dawladda oo maartay civil service laha yaa lafdhabarka iyo maskaxda dawladda ma aha dadka siyaasiga oo gabanaga iyo la soo doortay shaqaalaha ayaga waxaa la rabaa inay wajeer kali joogin inay tarbaja la geeyo inay dhasheeg imaadaan oo woodka tarbaja laga hela shaqaala inay tagaan maartay habaas weyna girifto eldaas bute iyo wajeer shaqaalahaas county waxaa loo hoos keenay caafimaad kulli shaqaalihii caafimaadka oo shaqaynaya in la arka shaqaalihii biyaha ka shaqaynaya inay subcountiyaashaas ay tagaan la rabaa
oo kormeerana jira lacagtoodana loo dhiibo tababarkii laga rabina ay lahaadaan gaarideeda loo yeelo allowance-kooda loo yeelo oo waxa dadka weydiina maxaa dhib oo jira waxa abaarta soo sheega ayaga ay noqdaan lacagtii looga hortagi lahaayna waxa ayaga ay noqdaan oo gobanaaga iyo maartay dadkii biyaasyaasha iyo wasiirinta as magacaabe ay kormeer ka noqdaan inay shaqadii sheegeen la qabanahay oo wareegaan oo shacabka wareystaan maxaa dhibkiina hadda waxba laga ma haytaas dawladda ayna saasay noqon insha Allah waxaa jiri doono meel walba waa ka sheegay intii countiga shaqa laga rabay inay laga heli doono sub county-yaasha oo wadadkana ay maadi doonaan oo wana wareegi doonaan oo shacabka weydiin doonaan maxaa dhibkiina sanadka soo socda maxaa liin qabana ay dadka dhigi doonaan sida ayada ay yeelay jireen waxaa kaloo ballan qaadayna marka taas tusaale yar yar kiilan ka bixina waxaan dhaana istaalaha iyo biyaha iyo kuwaas lisma warsana waa shaqaynayna insha Allah maxaa yeelay waxaan aaminsanahay lacagta loo keena wajeer shaqadaas waa ku filanta laakiin maxaan ku dareynaa oo hadda laga aqaan wadan kale xoolaha xanaanadooda waa sheegteen markii abaar dhacday biyahan dhaamin waxaan soo dad kulli waa barteen waa biyaha dhaansadeen laakiin biyaha markii la dhaaminay kii maskiinka looma danayn kii lacag yar qaba yaa gaarida dawladda qaatay oo lacag kala baxay gaaridaas waxa la rabaa in biyo laga dhaamin mashiimaha markii abaar dhacday in free laga dhigo oo dieselka ay dawladda bixisay ahayd lama yeelin waxay ku qasabtay neefkii kili oo bixilay maadaama xoolaha ay bici lahayn inay dadka gadaan dadkii xoolaha ka soo dhammaaday oo beledka imaaday gurmad ma helin haddad sheegaan maqlay oo xoolo hilib la sii gurmadkay ka ay jirtay inay xoolahana beecooda hoos u dhawin oo xoolaha la gada marka hilibka ida in meelka la geynayna ilmihii ku liito beled soo galay la sii hilibkaad maqlaysay safarta kala aan subin nidaamkaas ay ahayd oo inay xoolaha ay suuqooda soo soo dhicnayeen tiida lama helin marka hadda maxaan leenahay maadaama dawlad county ay jirto oo lacag badan ay jirta waxaan leenahay ward walba meel kayd ay hagaagsanayeen shaqaalaha loo qora bal iyo cows ay beerayeen oo kayd loo dhiga bangi cows la dhiga maalintii abaar dhacda xoolo dhaqatada oo shirkadooda ay tahay ay meeshida ka qaadanayeen xoolahay ku baxsanayeen markii xoolahooda gadaan ay bixinayeen deyntii beec jabanayna ku gadanayeen waxaan rabnaa abaarta dambe oo imaad anagoo diyaar u ah oo maartay xoolo naga laayeen oo wix jirada la daaweyna in la helo insha Allah oo wad walba asfartar xoolo joogo oo meeshii kaydkan ay jirta kii xoolaha maartay range officer oo maartay daaqa iyo dhirta inaad fiiriin la rabina aad joogo oo marka hore dadka la taliya oo marka dhulka barkiisa nasasho loo yeelay si awal yeeli jiri oo dhulka barkiisna maartay markii la daaqa meelaha barkoon la keed dhulkeena waa nabad guuraha ilmo badan aan dhalayna xoolahayna waa badan hayaan waa in laga tashada xoolo dhaqatada laga tashada maxaa kaloon leena tuulooyinka dhibka qaba oo laga warqabin kuwa barkood oo meeshan South Antaga oo network qabin inay maartay ayagana waxyaalaha muhiimka istaalaha biyaha iyo oo nolosha inay helaan dawlad saas loo qana dadkii dawlad lacagteeda inay iskabana ninkii qaybina noqdo ma kor waa ka qaybina oo caafimaadka inta la gilaaday inta aan umada la gilaaday laakiin ma dhigi kara aniga maartay jeebkeedan ka soo bixina aniga maartay hebel contract siina oo adiga hadaad bixisay hadaad wax halaysiya loo sheegana marka waxa la rabay shaqaalaha inay shaqada qabtaan kii wax leey marka adiga qofka loo soo sheegana noqoto hor dawladdan sheegayna waa taas